amba chief caaqil kana soo jeeda beesha ciise waxaan rabaa inaan laba kalmadood ka idhaahdo mashaakilka ka taagan muqdisho ama daba dhilifyadii lacagta ka soo qaatay inay qaranka burburiyaan ee jasiira ku shiraay ummadda horta way ka hadashay codkoodii way ka dhiibatay taayadina inaan ku darnaa rabaa qaranka Soomaaliyeed isagoo baaba'ay oo tuug helay oo musuqmaasuq helay oo asfala saafiliin joogta oo dunida ugu hooseeya oo la socona Ilaahay madaxweynuhu noo soo diray maxamed cabdillaahi farmaajo uu soo diray iftiin soo baxay weeyi ilaahay soo baxay weeyi nuur ummadda u yimid weeyi wadankoodii buu hagaaji hamigii ummadda Soomaaliyeed buu soo celiyay wuxuu soo celiyay sharaftayadii iyo karaamadayadii iyo dadnimadayadii intaba uu soo celiyay ummadii Soomaaliyeed dabada ku xidhneed uu soo daayay national theaterkii uu dhisay stadiumkii uu dhisay maktabadii qaranka uu dhisay wadooyin buu sameeyay ummadan Ilaahay uu soo diray madaxweyne daacada weey lacag kama qaato mishaarkiisa wuxuu qaybiyaa dadka masaakiinta iyo caruurta in agoonta meeshoodu ku bixiya iyo dadkii dagaalkii ku anaafoobay ayuu ku bixiya waxba kama qaato tuug maaha burcad maaha musuqmaasuq maaha qabiilista maaha waa wadani dhaba ummadda Soomaaliyeed Ilaahay baa u soo diray qalbigayga iyo qulubteedu ku jira niyadaydu ku jira waana jecel ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogtaba qalbigooda ay ku haysa farmaajo 12 nin ee burcada ah ee Kenya la soo shiray ee ka soo qaatay lacagta ee qarankana burburinaya ee damiirkii ka dhimatay damiirkii baa idinka dhintay dadnimadii baa idinka dhimatay sharaftii baa idinka dhimatay karaamadii baa idinka dhimatay diintii baad ka baxdeen islaamka islaamnimadii baad ka baxdeen waxaad tihiin daba dhilif wixii aad cuni jirteen baad weydeen musuqmaasuqii baad weydeen tuugadii baad weydeen dhulkii aad iibinayseen baad weydeen badii aad xaraashayseen baad weydeen farmaajo intaasoo dhan buu la dagaalamaya wuxuu hortaagan yahay tuug qaran dumis qabiiliste musuqmaasuq dadkii badeena iibiyay dadkii meel walba iibiyay qarankeennii ayuu hortaagan yahay waxa ku haystaan wax kala ma ah waa dalkan maxaad hore ugu wadaa halkiisa maad ku deyshi inay boobaan bay rabaan ninka aqli leh aqligoodi ka maqan yahay barbarian baatiin wax afka Ingiriiska lagu barbarian waa wax barbarian baatiin waxatiin wax burburiya destructive baatiin inaad wax burburisaan bad rabtaan wax dhis ma jiro dadka barbariankii dadka way dhacaan dumarka way fuulaan xoolahooda way qaataan waxay helaan xoog bay ku qaataan guryaha ay qaataan waa dad primitive society wax wayaan aqli mare even hadduu wax bartana wax bar cilmiga waxa barashadiisa waxa looga baahan yahay inuu qofku aqoon leeyahay waa inuu aqli leeyahay cilmiga hal lagu dhige aqliga kaashabali aqli baa loo baahan yahay nin Soomaaliya oo damiir Soomaaliyeed oo dadnimo Soomaaliyeed oo sharaf Soomaaliyeed oo karaamad Soomaaliyeed oo sharaf ku jirto intuu Kenya hoosta oo Soomaaliya cul yihiin lacag intuu ka soo qaato halka jasiira lama fadhiisteen Kenya isma tuseen wixii Kenya u soo qortay ma sheegeen gadab ciidamada Soomaaliyeed ka baxay halkay tagaan ciidamada Soomaaliyeed bay joogaan ma Kenya xakunto ma ugu Kenya xadkuma ma William Ruto dadkii uu lahaa waan sameeynaa baatiin laakiin Soomaali weydin ogtahay dalkani shaqo kuma leedineen Umar Finish baa idin sheegay Ilaahay khayra siiye Ali Geedi baa idin sheegay wax salaad Ali Jeelaa idin sheegay ummadan baabiin maysan caruurtan dili maysan caruurta farmaajo mustaqbal u sameeyay caruurtan mustaqbal ma lahayn waxay gali jireen shabaab nuclear waxay qaadan jireen qori iyo baasuuka ayay qaadanayeen mustaqbal ma lahayn maantana jaamacadii bay ka soo baxayaan iftiin baa u muuqda iftiinka ka burburina ciidamadii buu sameeyay mishaarkii buu siinaya qalabkoodii buu keenay wax walba uu qabtay waxa qabateen ma jirto dalka waa joogteen wakiil isku cunay wakiil qof cunay Ali Mahdi waa kii joog 250 qof baa ku maqan civil war buu ka abuuray wakiil ciidamadii Soomaaliya isku dhibayay jabhada in arta qaalib isagu dacaamil buu iska fadhiyay Sharif haysan baa xukumay iyo Mahiga ayaa xukumay isagu madaxweyne ma ahayn Hassan Sheikh waxa xukumay ninka la oran jiray Gabra ayuu hoos fadhiyay isagu madaxweyne ma wuxuu bay xadayeen iyagu wuxuu bay boobayeen kuwii baa doonaya dalkan inay baabiyaan dalkan baabiin maysan dadkii aqoon baa u kacay dadku way fahmayaan hadeed ma jirto qori la qaato qabyaalad lagu soo wareego xamar waan duminaynaa waxaas ma shaqeynayaan qarankana uu dhaqaaqay dhinaca qabsada يوم من الأيام مركب وطن كان عود يش يدل عود لي ماده قرن كان يستاجر محكمات بالين صوت تاجية
wixii aad samaysana maxkamadeedu ku soo taagayo markhaatiya Kenya aad ku soo shirteen lacag baad ka soo qaadateen xamar baad timaadeen fowdan ka ridaynaa dagaal baan ridaynaa ma ridi kartaan waa la idin sheeg naftiina halaagina naftiina ummadda Soomaaliyeed waan salaamaya meel kastoo joogtaanba iska jira kuwa cadawga iska jira idin la walaalka ee la idin soo adeegsanaya Kenya iyo ay wataan iyo Imaaraadku iska jira waana iska ilaalisan Soomaali ha noolaato qaranka Soomaaliyeed ha noolaado farmaajana ha noolaado